الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله إياهم من الضلالة وبصرهم من الجهالة وأغنى به بعد العيلة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فعن عبادة بن صامت رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، إخواني، نفتيدي أن فيه إنه وحن يسودر دار منا إلهي سبحانه وتعالى إلا قعب صدو الله قبقه سيد إلهي سبحانه وتعالى وتلمام أيه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. intaa ka bacdi walaalayaal, waxaynu jumcadii suuqeen dambeysay soo qaadanay xadiid ka mid ah xadiidta nabiga sallallahu alayhi wasallam, min xadiid Ubadah ibn Samit oo nabigu sallallahu alayhi wasallam uu yiri: waxaad nafihiina iiga damaanad qaadaan 6 shay, aniguna aan idin damaanad qaado jannada inaad galeysaan. 6daas shay walaalayaal waxaynu ka soo qaadanay xadiidku tilmaamay 2 midka koowaad wuxuu ahaa as-sidqu fil xadiid, qofku inuu hadalka ka run sheego oo hadalkiisu uu run noqdo. qodobka labaadna wuxuu ahaa al-iifaa'u bil ahd, ballanta in la oofiyo oo wixii ballanta uu qofku ku qaado uu ka soo baxo. qodobka saddexaad ee maanta aynu dul istaagaynaa wuxuu yahay jumlada saddexaad ama qodobka saddexaad ee xadiidka nabigu uu ku tilmaamay oo ah: وأدوا إذا اؤتمنتم، guta haddii laydin aamino ammaanada guta oo sideeda uga soo baxa. ammaanadaas walaalayaal waa mid aad iyo aad u weyn oo arrinkeedu aanu sahlanayn, waana arrin aad u culus, sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إلهي وحو تلمامي وحن أصو بندقني أمانة السماواتك إيا دولالك إيا بورها مركاسي كعذر داتين أو كعبصدين أو أي كبقين إني أمانة قادة مركاسا وحا حنباري إنسانك. markaasaa ilaahay wuxuu ka dabageeyay insaanku waa mid jahli badan oo gardarro badan oo waxa weeyaan aan wax badan ka fiirsanaynin. ammaanadii ay ka cudur daarteen makhluuqaadkaas aadka u waaweyn waa samaawaadka iyo dhulalka iyo buuraha
ayuu isagu tuurta u ritay amaanadaasi walaalayaal waa ta Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku tilmaamay malaa'igtiisa gaar ahaan malaku Jibriil oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu wakiishay inuu ka soo qaado xaqiisa waxyiga oo soo gaarsiiyo rususha iyo anbiyada markaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu tilmaamay nazala bihi ar-ruuhul amiin quraanka waxa la soo degay oo rabbi ka soo qaaday nabi maxamedna soo gaarsiiyay ruuxdii la aaminay waa malaku Jibriil alayhi salaam amaanadaasi walaalayaal sidoo kale waxay ka mid tahay tilmaamihii ay ku tilmaamnaayeen anbiyadii iyo rusushii Ilaahay soo diray oo nabigu ama rasuulku markuu u yimaado qoomkiisa ee ay ku soo istaagaan ee ay beeniyaan wuxuu ku oranayay inni lakum rasuulun amiin anigu waxaan ahay mid la idin soo diray oo aamina oo amaanad ku tilmaaman waa nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam maalinkii Xunayn markii uu waxa weeyaan qanaa'imta qaybinayay ninkii dil Khuwaysara la oran jiray ee khaarijiga ahaa oo ku yiri nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam i'dil ya muhammad fa innaka lam ta'dil محمد أو كعدالة سمي حولها ناد قيبي سيء غنيمة عدالة ما تسمينه سوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم له الله نبي محمد هذا الكعاد بوقع عروض هذا الذي أجري وحكم دها مياني إيامينين كوا دولك كسوغاني يدو إياميني عدة سماد كسوغاني وإلهي سبحانه وتعالى مركا واتي وحويان حتى مركي النبي قال لك دقين uu la noolaa reer tulki uu la noolaa ee aan risaalada loo soo dhiibin waxay ku naanaysi jireen Muhammad al-Amin Muhammadkii waxa weeyaan amaanada badnaa Muhammadkii waxa weeyaan amaanada badnaa ayay waxa weeyaan ku naanaysi jireen min shaa'irat al-maamaya wuxuu leeyahay walaqabathu quraysh bil amin ala sidq al-amanati wal ifa'i bil dhimam nabi Muhammad quraysh waxay ku naanaystay al-amin sababtu waa maxay وأمانة بدنديسة هي هذا الكورنت كشيء حتى مركي وحوي النبي قال لك دقي رسالة الله صادري الله صادري دد بدن أي كعلاديين قال هذا قار كميده حولها أي ميل يدقان وعيه أي يقول صادو سين هبينكي تبتنا النبي محمد بيقولي بيين مركزي كورنا ينوهي النبي محمد أما محمد نوهي حتى يجوا إنكرسنا بالنمديس وات النبي صلى الله عليه وسلم markii uu hijroonayay magaalada Makka uu ka hijroonayay oo Ali kaga tagay amaanaadkii agtiisa taalay si waxa weeyaan uu ugu oofiyo Ali cidii lahayd oo qacanta uga geliyo marka waxaan leenahay amaanadu waa tilmaamaha ay ku tilmaaman yihiin rususha iyo anbiyada iyo dadka khalqigan ugu fadliga badan ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu soo diray أمانة ولا ليال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وحكوت المامي لا إيمان لمن لا أمانة له إيمان ملها قفك أن أمان لهيني إيمان ملها ورسوله صلى الله عليه وسلم أوت المام كذلك حديث عبد الله بن عمرو نبي وحكوت المامي 4 إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وحول النبي حديثك أفر هديك وجسوا جيهين أفر صفة أما أفر تلمامود هدات كنت تلمامان تهاي وحبك مجل الدنيا ده وحي كلافة إيه كسيجة أتجاري ويدو أفر النبي وحوجه الرئيسي حفظ أمانة ده إناد حفظه وأد إلى لسه قف كنت تلمامان هدات هاي الدنيا ده وحبة نقوم بحث وحط الماما يا النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو وأولي هاي أفر شيء قفك يكسو جيهين وحكسو جن وحويان خصلت نفاق كمدة أما منافق لماذا كمدة أفرت النبي مركو ترين وحكو دري إذا تمن خان هدي لا آمنه ووحلقوا آمنه قفكاسي أمانة هو خيامة وما إلى عليه من حديث حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم وحوت المامي أمانته inay ku sugnayd markii hore quluubta ragga ama quluubta dadka quraanka iyo sunnadu markay yimaadeenna ay sii xoojiyeen oo ay sii raasukhiyeen
كبعدي النبي صلى الله عليه وسلم وحو تلمامي أمانة إلا رفعنا يولا قاضي وحويا مربا إن لوايي إلى آخر زمان كأي دعوه رسولك يري إلا يراهو رير هبل وحكو جيرانين أمانة له ورير دن أما قرن دن وميل دقن أيا وحلا ليه هاي هبل با أمين كأ أما هبل با أمانة كتلماما وحند مودامانتا إني وحويا تاغنتا أمانة عين كاس ولا ليال يا أينو أرقني شرعي وهلك وكتاغن يهي أما أودغي قيبي وقيب سنتا ميلا بلان oo nolosha kamid ayay gashaan waxa kamid meelaha ay gasho uguna muuqashada badan al-ibada ama fi al-ibada amaanadu waxay gashaa cibaadada dhexdeeda oo waxa loo baahan yahay qofku markuu cibaadaysanayo cibaadadiisaas inuu amaano kula yimaado ilaahi subhanahu wa ta'ala u ikhlaas yeelo ilaahi subhanahu wa ta'ala u baraxtiro oo aan wax kale ku barxin sidii loo baahnaa inuu ula yimaado arkaanteedii iyo shuruudeeda inuu ilaaliyo wixii burinaya dadku ah uu ka fogaado taasi waxay ugu horeysaa waxa weeyaan amaanada qaybaheeda ayay ugu horeysaa waxa kamid ah walaalayaal amaanada qaybaheeda qofku xoolaha dadka inuu amaano kula yimaado tusaale ahaan deyn haduu deynsanayo ama uu qaadanayo inuu amaano kula yimaado oo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدها الله عنه ومن يريد إتلافها أتلفه الله قفك حولها دتك قاتا دونيه إنه إسكجد وإسكبحيه إلهي سبحانه وتعالى وكجد وكبحيه قفك قادنا دونيه إنه بابيه حولها دين تآن سوء لنا إلهي سبحانه وتعالى هبابيه أما هو بابيه أي النبي صلى الله عليه وسلم وتلمام marka amaanada qaybaheeda waxa kamida al-amanatu fi al-amwal xoolaha dadka inaad waxa weeyaan amaano aad kula timaado gaar ahaan deynta iyo waxyaabaha wadiicada ah ee lagu aamina lagu dhiibay waxa kamida walaalayaal amaanada qaybaheeda al-amanatu fi al-amal qofku amalkii loo dhiibay iyo shaqadii lagu haleeyay inuu siday ahayd uga soo baxo siday ahayd inuu uga soo baxo ayaa waxa weeyaan loo baahan yahay hadii waxa weeyaan lagu yiri guri noo dhis waxa loo baahan yahay sidii loo baahnaa ee lagu amray inaad u dhisto hadii lagu yiraahdo waxa weeyaan macallin noqo waajibkii lagaga baahnaa waxa weeyaan inaad la timaado oo amalka aad sugto ayaa loo baahan yahay hadii xafiis lagu fadhiisiyo lagu aamino waxa weeyaan sidii hawshu ahayd inaad la timaado loo baahan yahay nabiguna sallallahu alayhi wasallam min hadith Aisha wuxuu tilmaamay إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه إلهي وحجعليه متكين هديه عمل سميه أو عمل أقومه عمل كائن الصغو أو سدو أها أو صبحه تاسلوا بهي وحكم إذا والله لي الأمانة قيبه ده الأمانة في البيع والشراء إن الأمانة كلها تماده وحا أدي بنيسو يا وحا سوي بسنيسو waxa aad gadaysa iyo waxa soo gadanaysaba amaano inaad kula timaado wuxuu tilmaamayaa Abi Hurayra radiyallahu anhu warda nabiga sallallahu alayhi wasallam annahu marra ala subrati ta'am inuu soo maray waxa weeyaan tuur cunto tuuran inuu soo maray dabeetana nabiga sallallahu alayhi wasallam qacantu galiyay cuntadii markaas qacantiisu waxay gaadhay qoyaan ama balal biyay gaadhay raashinkii qayb kamid oo qoyan ayuu nabigu taabtay dabeetana wuxuu la hadlay ninkii raashinkan ama cuntada lahaa ayuu u dhawaaqay markaas wuxuu ku yiri nabigu waa maxay qoyaankani waa maxay markaas wuxuu yiri ninkii ya rasuulallah asaabathu samaa rasuulkii allah roob baa ku da'ay dabeetana si aanay dadku u arag baan xagga hoose galiyay macnuhu saas uu noqonaya markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ma diyeeshid cuntada qaybta qoyan xagga sare ma saartid kay yaraahu naas si dadku ay u arkaan markaas nabigu wuxuu ka dabageeyay man ghashana falaysa minna qofkana khiyaama ee naqisha nagama mid ah rasuulku yiri marka meelaha amaanadu ay galaysa waxa kamida
البيع والشراء قفك ألابتو يبينيو إنو عيبتي ذي تلمانتي ذا أو صح أو تلمامو ككلنا حولها أو وحويا فيو أما حولها أو كوغادانيو أو دمايستيران إنو بحيو أيا لو باهي وحكم ذا ولا ليال أمانة ميلها يقليسو مسؤولية ده هي حلالك ليسو ديبيو وأي يقصر رئيسو مدحتني مدى أما مدحوينه وقصر رئيو والسيرة ده أقاسمياشا هايدها الدولة ده إلا وحويان مديرك إيا معمولها مدرسة ده لوغا إيمانيو ميلها سي أمانة قشا وحلو باهن يهي قفكو هدي وميلها ميل كميدا وقبطو ولو ديبو إنو أمانة ده إلاليو ومسؤولية ده وكصوبحو وحولها ضدك إيا هانتida waxa weeyaan dhowro oo aanu lunsan oo aanu ku takrifalin oo aanu sayr-sayrin oo aanu leexsan ayaa loo baahan yahay nabiguna sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay kullukum mas'uulun kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyati mid walba waxba loo diray oo raaci uu ka yahay iyo ilaaliye mid walbana waa la weydiinayaa buu rasuulku yiri waxa loo diray raaciga looga dhigay marka taasna waa mid waxa weeyaan aad iyo aad muhiima waxa kamida walaalayaal amaanada iyo qaybaheeda iyo meelaha ay amaanadu galayso al-amaanatu fi sir qofku inuu sirta iyo waxa lagu siraystay ee walaalkiisa muslimka ay ku siraystay uu amaana kula yimaado oo aanu faafin oo aanu fakin oo aanu dadka ugu sheekayn ayaa loo baahan yahay nabiguna sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay حديثك عبد الله ورينا ابن عمر عفوا وحليه جابر بن عبد الله ورينا إذا حدث الرجل فالتفت في الحديث هدي ننك لو شاكيو oo marka uu sheekaynayo waxa weeyaan ama sheekada uu wado hareeraha uu iska eego fahiya amaana warka uu sheegay hadalka uu sheegay waa amaana weeyaan حتى هدانو كوغو أوران هذا واسر حفظي لكن مركا وكو شيغيو وهريرها ويسك ايغو تلو عيدي مودو ده هي مقليسيه waxyaabaha la midka oo aad fahanto hadalkan inuu qarinayo kugu qarsanayo waxa loo baahan yahay inaad ilaaliso oo waxa weeyaan aanad fakin ama cid kale aanad u gudbin amaanadu walaalayaal meelahaas aynu tilmaamnay ee lixda ah iyo meelo kale oo fara badan ayay galaysaa waxana loo baahan yahay meel walbo amaanadu ay galayso in amaanada la ilaaliyo baa loo baahan yahay waxaan ku soo gabagabeynaa walaalayaal sida xadiidka abi hurayra uu tilmaamayo nabiga sallallahu alayhi wasallam maalmaha kamida wuxuu tilmaamay dadkii hore isagoo ka sheekaynaya ayaa wuxuu yiri nin ayaa wuxuu ka iibiyay nin kale dhul buu ka iibiyay ninkii dhulka laga iibiyay dhulkii markii uu la wareegay ayaa wuxuu ka helay dhulkii dahab ku aasan ayuu ka helay dabeetana dahabkii buu soo saaray wuxuu soo raadiyay ninkii dhulka ka iibiyay buu soo raadiyay wuxuu warniyo dhulkii aad iga iibisay dahabkan aan ka helay aniguna dhul baan ka iibsaday dahabka ma iibsan ee dahabkan adiga iska leeho kii kala hadla wuxuu yiri war anigu dhulka iyo waxa ku guda sugan baan ka iibiyay dahabkan anigu malihi adiga la dhaaf labadii nin baa halkii isku qabsaday arrinkiiba shiq noqday waxaynu maqaanaa dood ama waxa weeyaan laba qof oo isku haysta xoolahan aniga leh iyo malihid laakiin hadda waxay taagan tahay xoolahan adiga leh iyo malihi waliba waxa la isku baxay toolay riixaya waa dahab oo waa wixii ugu qaalisanaa waxa weeyaan xoolaha dhulka dushiisa saaran halkaas ay maraysa labadii nin marka waxay u xukun tageen sida nabigu uu tilmaamay nin xaakim ay u xukun tageen markaas waxa ninkii markii uu wareystay ee dhinac uu saara uu fahmi waayay ayaa wuxuu ku yiri wariyaahay mid intuu la hadlay caruur maleeda markaas wuxuu yiri ha inan baa leey kii kale la hadlay wuxuu ku yiri war caruur maleeda wuxuu yiri ha inan baa leey markaas wuxuu yiri waxaad sameeysan inanka iyo inanta isu guuriye isu dhisa xoolahan indhex yaalana ku dhisa wixii ka soo hadhana sadaqadaysta warkuna halka ku dhamaad sidii bay yeelay waxay ku tusinaysaa
أمانة هلكي أي كتاغني وات إلهي سبحانه وتعالى وتلماميو إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلهي وحود أمريا أماناتك إن أدو قدان عدي إسكالا هيدا حق أولا هيدا مدنيد أرنكاسنا وحلو بهاني ولا الليال إنينان ديالسن وأينان فضوديسن أمانة إيو وحويا وركيد وويه سيدا أدلة داس نصوص تاينو كو أركينو سيدا درتد وحلو بهاني هي أمانة داس إن لقو دالو إلى الانتيدة هدي لقو آمنو ولقو ديبو إسلام مركانا سيدي أدو قد لهيد استقوريت لهيد أي لو بهاني هي نتفلو قيد قبطو صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين اللهم وحد صفوفهم وكلمتهم يا رب العالمين اللهم وحد صفوفهم صفا واحدا متراصا ضد أعدائهم يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم لا تفضحنا في الأمانات يا رب العالمين اللهم لا تفضحنا في الأمانات يا رب العالمين اللهم لا تفضحنا في الأمانات يا رب العالمين